عويس wanaagsan daawadayaal waa wararkii xuliyo xaqiiqo qaybtan waxaanu idinku haynaa haddii aan la idmo ciidamada Shiinaha oo hubkii ugu tirada badnaa ku daadgureeyay gudaha Ruushka halka ay mariyeen iyo sida loo soo qabtay xogtaas baanu idin soo bandhigaynaa haddii aan la idmo mar kale taariikhdu waa 13 November 2022 duca qabayaal mar kale soo dhawaada aynu ku bilowno dawladda Shiinaha ayaa daawadayaal waqti xaadirkan saaxiibka kow ee lagu tuhmayo in ay gacan qabadka ugu weyn u fidiso xukuumadda Moscow reer galbeedka ayaa arrintan muddaba ku hawlanaa sidii ay u kala dhexgeli lahaayeen saaxiibada kala saxiixday waxa loo yaqaano saaxiibtinimada aan xadka lahayn si kastaba ha ahaatee hadda wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee loo yaqaano Pentagonka ayaa soo bandhigtay maabab ay ku tilmaamtay in ay sheegayaan in bridge-ka loo yaqaano Blogohine Bridge oo ka isku xidha Shiinaha iyo Ruushka bridge-ka isku xidha Shiinaha iyo Ruushka in maalmihii la soo dhaafay saacado ka mid loo xiray in kaliya ay maraan gaadiid military oo ka socda dhinaca Shiinaha kuna sii qulqulaya Ruushka gaadiidkan ayaan Mareykanka iyo xulufadiisu ogeyn waxa rasmiga ee saaran balse waxay soo bandhigeen tuhmo xogo ay ku fasirayaan tuhunka ay qabaan markaas bridge-kan Blogohine Bridge waa bridge-ka isku xidha Shiinaha iyo Ruushka markaas waxay dhaheen maalintii 12 bishii tobnaad 22 saacadu markay ahayd 1 habeenimo bridge-kan waxaa loo xidhay bay dhaheen muddo 5 saacadood waxa ku qulqulayay gaadiid aan ahayn kuwa caadiga ee kuwa militariga mar kale 17 bishii tobnaad sidoo kale isla 1 habeenimo habeenkii bay socdaanba 1 habeenimo waxaa saacado badan loo xiray bay dhaheen bridge-kan in kaliya ay qulqulaan gawaarida gaadiidka labada xukuumadood Shiinaha iyo Ruushka ayaan ka hadal ama marnaba soo hadal qaadin waxa gaadiidkaasi uu ku saabsan yahay waxa warbixintan Mareykanka wasaaradda gaashaandhiggiisu ay soo bandhigtay ay ku sheegeen in ay tahay fahankooda ama aragtidooda ay qabaan in gaadiidkani ay sideen gantaalada laba gantaal oo kala gantaalada difaaca cirka iyo gantaalada ama xabadaha rasaasta droneska waxa markaas hore Ruushku uu in badan u baadigoobayay in uu droneska ka qaato Turkiga iyo Iran sidoo kale Shiinaha ayaan marnaba intii 9 bilood ee dagaalku socday marnaba lagu soo hadal qaadin in uu gacan military ku leeyahay dhacdadan ama colaadan Ukraine hadiiba ay xogtani noqoto mid rasmi hadii ay noqoto mid jira horta aan idin dhameeyo 10 bisha 11aad oo 3 maalmood ka hor 10 bishii 11aad isla sanadkan oo 3 maalmood ka hor mar kale 1 habeenimo ilaa 3 habeenimo bay dhaheen waxaa bridge-kan socday isla gaadiidkaas militariga ka socda dhinaca Shiinaha ku socda dhinaca Ruushka may sheegin gaadiidkani in uu ahaa gaadiid hub soo dhigay oo soo laabtay iyo in gaadiidkan qulqulaya uu yahay gaadiid si rasmi ay ula wareegayaan ciidamada Ruushka si kastaba ha ahaatee haddii xogtani sax tahay waa gacan qabadkii ugu horeeyay ee la soo bandhigo ciidan ahaan Shiinuhu u fidiyo Ruushka hore dhaqaale ahaan baynu ogeyn inuu si weyn u dhinac taagan yahay waxa kale aynu ogeyn siyaasad ahaan in uu Shiinuhu kala shaqeynayo Ruushka in aan lala helin go'doonka caalamiga ee reer galbeedka iyo Mareykanku ay la rabaan haddase waxa si xaqiiqo haddii warkani uu noqdo mid la xaqiijiyo in ay tahay markii ugu horeysay ee ciidan ahaan military ahaan Shiinuhu uga soo dhex muuqdo colaadan Ukraine taas ayaa si weyn wax uga bedeli doonta qaabka loo wada hadlayo amaba natiijada dagaalka hadda Mareykanka iyo xulufadiisu waxay qabeen in dhaqaale ahaan kaliya aan ku filan dagaalkan balse Ruushku uu u baahnaan karo maadaama cunaqabateyn badan la saaray oo la isu xulufaystay uu u baahnaan karo gacan qabad military hadda dowladda Iran
ayaa hore iyadu bannaanka iskeentay oo sheegtay inay ku taageerayaan dronska aan duuliya lahayn kuwooda khatarta ah iyo weliba gantaalo kale oo ay sheegeen qandaraasyo inay kaga iibsadeen ruushku haddii shiinuhu kusoo biiro taasi runtii waa game changer baa la odhan karaa waa isbeddel weyn oo ku yimi colaadda markaas hadda xogtaas waxaa soo sheegtay wasaaradda gaashaandhigga militariga satellite sawiro ah ayay soo bandhigeen oo ay sheegeen ay yidhaahdeen sawiradaas ayay soo bandhigeen xogtaas haddii ay sax tahayna taas waxay si weyn wax uga beddelaysaa colaadda adiguna bal aragtidaada ku saabsan xogtan nala wadaag daawade